kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulka maanta oo maalin walba hadaan oo kala aad ka daawataan TV-ga Himilo marka laga reebo maalinta Jimcaha qodobada maanta ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya dagaal culus oo xilligan ka soconaya gobolka Awdal faahfaahinadii u dambeeyay ka soo baxaya qasaaraha rasmiga ka dhashay dagaalkaasi cid u dhaxeeyo ayaa halkan idinku soo gudbin doona waxaa sidoo kale muuqaalka aad ku daawan doontaan khilaaf culus oo weli ka taagan shirka iclaamisay dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona weli la isku mari laayahay halka shirka lagu qabanayo xogihii u dambeeyay ayaa halkan kugu soo gudbin doona waxaa sidoo kale muuqaalkan inta aad daawanayso ku soo gudbin doona dawladda Turkiga oo saldhig military ka sameysatay gobolka Shabeellada Dhexe hadaba maxay ku dooratay muuqaalkan ayaad ku daawan doontaan waxaa sidoo kale xulka maanta idinku soo gudbin doona 32 qof oo shacab ah oo toogasho lagu dilay qodobada wixii kale lagu soo kordho hay'ad barnaamijka xulka maanta ku daawan doontaan markana aynu ku bilowno faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal sababay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo xilligan ka soconaya gobolka Awdal dagaalka ayaa si gaar ah waxa uu kaga soconaya tuulada Galmadow iyadoona dagaalka uu u dhaxeeyo beesha Ciise sidoo kale beesha Samaroon iyadoona wararka sheegayaan in dagaalka maanta ka soconaya gobolka Awdal uu ka duwan yahay dagaalkii horey ee qaybo kamid ah Soomaaliland ugu dhaxmaray labadan beel iyadoona la sheegayo in dagaalka maanta uu ka culus yahay dagaalkii horey u dhaxmaray waxaana la soo warinayaa in halkaas uu ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray inkastoo weli aysan cadeen qasaaraha rasmiga ah maadaama xilligan uu dagaalku soconayo wixii xogay ku soo kordhana wararkeena xiga ayaa idinku soo gudbin doona markana waxa weli khilaaf culus oo ka taagan yahay qabsoomida shirka iclaamisay dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo u dhaxeeya dawladda iyo sidoo kale golaha samata bixinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan madaxweynayaasha Puntland iyo sidoo kale Jubbaland shirka ayaa waxa la isku mari laayahay in lagu qabto xindaabka xirada xalana iyo sidoo kale in lagu qabto Villa Soomaaliya iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu rabo in shirka lagu qabto Villa Soomaaliya halka madaxweynayaasha Jubbaland iyo sidoo kale Puntland ay ka soo horjeedaan in shirka lagu qabto Villa Soomaaliya taas beddelkeedana ay doonayaan in shirka lagu qabto xarunta xalane iyadoona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ceeb u arko in shirkii loogu tashanaya aayaha ummadda Soomaaliyeed in lagu dhax qabto xalane iyadoo ay ka wanaagsaneed in shirka lagu qabto Villa Soomaaliya arrimahaas oo isbiirsaday ayaa dib u dhigay qabsoomida shirkaasi iyadoona dhowr jeer uu hore u dib u dhac ku yimid iyadoona magaalada caasimadda Muqdisho ay ku sugan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ujeedka halkan ay u yimaadeen uu yahay ka qaybgalka shirka ay iclaamisay dawladda federaalka Soomaaliya kaas oo diiradda lagu saarayo arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale wax ka beddelka cutubyo ka tirsan dastuurka ku meel gaarka ee dalka markana haddii aan aadno gobolka Shabeellada Dhexe dawladda Turkiga ayaa saldhig military halkaasi ka sameysatay iyadoona saldhigan si gaar ah looga dhisay deegaanka Bashaqle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe dawladda Turkiga ayaa isbuucyadii la soo dhaafay waxay si weyn u qalabeynaysay ciidamadeeda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo ay ku xoojinaysay guutooyin ciidamo oo laga keenay Turkiga iyo sidoo kale agab dagaal oo ka mid yihiin diyaaradaha dagaalka ee F-16 taas oo loo arko in Turkiga uu kor u qaadayo joogitaankiisa Soomaaliya dawladda Turkiga ayaa ah dawladaha saaxiibka la ah dawladda federaalka Soomaaliya iyadoona dawladda Soomaaliya ay ka taageerto dhinaca amniga iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo kale tababarida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markana haddii aan soo qabto qodobkeena u dambeeya 32 qof oo shacab ah ayaa toogasho lagu dilay iyadoona dilkaasi ay geysteen kooxo burcad oo hubeysan tari intaas ka badan ayaa la soo warinaya inay afduubteen iyagoona u watay dhanka iyo keymaha dad kale toogta ayaa waxaa la sheegay in dhammaan ay ahaayeen dad shacab ah isla markaana ay ku sugnaayeen goobahoodii ganacsi sidoo kale guryahooda lama soo warinin ilaa hadda sababta rasmiga ee ka dambeysay beegsiga dadkaasi shacabka iyadoona dilkan uu si gaar ah uu kaga dhacay 3 tuulo oo ku yaala gobolka Neegar ee dalka Nigeria guud ahaan daawadayaal barnaamijka xulka maanta aad ka daawanayseen Himilo Soomaali TV waana inta warkankiisa xiga inta dib ka kulmi doono si nabadgelyo waad ku mahadsantiin daawashada warkayaga